nin ayaa u yimid xaaskiisa iyadoo jikada ku jirta. Waxa uu ku yidhi, yaad ugu jeceshahay carruurtaada afarta ah? Waxay ku jawaabtay, dhammaantood ayaan wada jeclahay. Waxa uu weydiiyey, sidee ayuu qalbigaaga jaceylkooda carruurtaasi dhammaantood u wada qaaday? Waxay ku jawaabtay, midaasi Ilaahay ayaa inoo abuuray, waayo hooyada qalbigeeda dhammaan carruurteeda ayuu deeqaa kalgacaylka ay u qabto. Ninkii intuu yaro qoslay ayuu xaaskiisa ku yidhi, hadda waad i fahmi kartaa sida uu qalbiga ragga afar xaas u qaado, waayo mid Ilaahay u jideeyey waa arrintaasi. Haweeneydii ayaa durba cara la dhacday, way xanaaqday, waa isbeddelay wejigeedii, waxayna durba gacanta midi ay ku haysatay la dhacday ninkeedii. Sidaasna goobta ugu geeriyooday. Qaabkii taatikada u adeegsaday aad ayuu u fiicnaa, hase ahaatee qaladka uu ninkaasi gala ayaa ahayd in sheekadaasi uu la yimid jikada dhexdeeda. Haddaba arrintan waxay muujinaysaa in ka fiirsasho looga baahan yahay wax waliba aad sheegayso iyo sidoo kale goobta aad ku sheegayso. Waxaad la socodsiinayay sheekadan kooban wariye arrimaha bulshada Gacal Ayman.